على أحمد sabarey waxaan kugu dhaarinayaa magaca Ilaahay inaad ku dhaqmaysid diinta Islaamka nidaamka iyo ahliga SSC nidaamka iyo ahliga SSC iyo qawaaniintiisa ma kugu wallaahiba waayigu wallah ma kugu billaahiba waayigu billaahi ma kugu tallaahiba waayigu tallah inaad dadka iyo dalkiisa daacad u tahay waajibaadka aad ku leedahay hogaamiyaha aad si daacad u gudanayso ma kugu wallaahiba waayigu wallah ma kugu billaahiba inaad laascaanood iyo xoreynteeda diyaar u tahay oo aad gudanayso waajibaadka ay ku leedahay dadweynaha SSC ma kugu wallaahiba waayigu wallah ma kugu billaahiba ma kugu tallaahiba جزاك الله khayran insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم ومهتين قلنا البراءة خصوصية كان مقعابين وين حلك وهي قدر وانا قلي وحان هل سوتشين هي شعبك SSC ميري شغال بقضية دبيبة arrintan waxay ku wajahan tahay gobolka Sool gobolkii ay waageeyeen inaynu ka soo jeesanay gobolka Sanaagna beelihii ciidamadii beeleedkii Sanaag ayaa iyana soo afjaray sida uu ku helayno arrinta qole hadii waxa weeye arrinta Sool taasina hadii Ilaahay aynu isugu tagi doonaa shacabka SSCna waxaan ka rajaynayaa inay kalsooni ku qabaan taageero ka badan tii hore oo muujiyay hoggaanka annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaanu qorshe cad ku soo bandhigno muddo kooban iyo qorshe cadna aanu ku wajahno gobolka Sool dadka taageera maxay ahayd halkan waxaynu u samayn doonaa waxay ku qancaan oo taageeradoodu meesha ay gasho iyo waxa lagu isticmaalo aan u samayn doonaa inay maxay ahayd warbixin ay ku helaan markasta kelmad waxaan oranayaa dadka ku nool gobolka Sool gobolladii kale sida aad ogtihiin waa xor caawa idinkeedii ku hadhay waxaan idinku guuraabinayaa in aad ka kacdaan fadhiga oo ka baxdaan gacanta gumaysiga oo maatada iyo dumarka iyo carruurta hortiina lagu leynayo iyo nagarboodkiina madaxa loo soo duubanayo aad bilowdaan hadalka inaad bilowdaan kabacdina waad sugi kartaan maxay ahayd taageerada gobollada kale iyo ciidamada SSC haddii aydan ka kicin fadhiga idinku oo halkiina bilaabin ma jirayso ciidamada ay ka soo galaan dhinacaas maxay ahayd dhinaca kale uga baxa waddanka oo idin imanaya waxaan kaloo u soo jeedinayaa arrin dadka isirka la wadaaga ehelkana la'a gobollada tolkiin afkii xaas buu galay waana isku raaci waayey inuu si degdeg uga baxo buu idiin baahan yahay tolkiina gacan tolnimo u fidiya si ay gumaysiga iskaga qaadaan waxaan kaloo maxay ahayd u soo jeedinayaa baar dadka danaynaya shirarka in lagu qabto gudaha waxaanu leenahay annagu dad danta wada ummadda dadka horjeeda mana hase yeeshee waxaa jira shirar hore oo keenay maxay ahayd waxyaaba aan habboonayn shirkii buuro wadan oo ugu fiicnaa oo laga rabay inuu isku raaco bahante wuxuu ku dhaawacmay buuro wadan laftiisa SSCna weli way la dhuntinaysaa maxay ahayd dhaawacii halkaa ka soo gaadhay kii London lagu qabtayna isaga iyo maxay ahayd gudiyadii ka farxamay waxaa naga soo gaadhay waa dhibaato aamin darraa naga soo gaadhay oo dadkii is-aamin waayeen waxaa naga soo gaadhay taakuwayntii oo istaagtay waanu arki doonaa waxa ay la socdaan haddii ay dan wadaanna dadka waa isla garan doonaa laakiin waxaan u malaynayaa in la isla dhaafay siyaasaddii buugga laga akhriyi jiray oo quri xabaddii taaganta nin xoog kugu qabsadeena hadal iyo baryo kaagama kaco annaga fakarkaygu waxa weeye in xoolaha lagu bixinayo hadal oo aan la ogeyn waxaa ka soo bixi doona in lagu wajaho gobolka Sool muddana loo qabto
annaga fikirkaygu waa kaas maxay ahayd wuuna cad yahay waxay noola yimaadaanna jigjigay marayaan baa layidhi dadkii qiimaynta ku samayn lahaayeen waa sarki doonaa haddii lahayd waxaan mar labaad u mahadnaqayaa shacabka gobollada SSC waxaan u mahadnaqayaa shacabka golaha fulinta iyo golaha xusuusiga iyo maxay ahayd ciidamada fidaayiinta SSC waxaan leeyahay haddii dadna dantooda ka shaqaystaan waxaan isla caaw oo bishu tahay bishii 17 bishii 8 2011 u magacaabay ku-xigeenka hoggaanka miday oo aan iska ogolaanay golaha xusuusiga aana horgeyn doono inay ansixiyaan abokor suun oo dhadhable oo aan mas-uul lagu aamini karo waddanka waana ninka aan isleeyahay inuu aniga xilka aan hayo iiga dambeeyo ninka uun baan ogahay caawa wax hoggaamin karaa waddankan maxay ahayd gobollada SSC isagana sidaas baad la socon doontaan. bismillaahi raxmaani raxiim waxaan mar labaad u sheegayaa golaha midnimada SSC dhammaanteed waxaan mar labaad u sheegayaa in la sameeyey sanadkii hore charterkaas oo ay sameeyeen golihii ay u idmadeen isimadu charterkaas oo u ogaa hogaamiyihii hore waxaana ka saxeexay soo ku soo gudbiyey xilliga hadda ay ku salaysan tahay SSC charterkaas oo muddadiisii hore loogu soo gudbiyey dhammaan SSC waxaanu leenahay dhammaan charterka iyo qawaaniinta ha u hoggaansameen guud ahaan SSC meel joogtada hana la shaqeeyeen isbeddelka iyo sistemka cusub ee SSC ee ku wajahan gobolka Sool iyo xoreyntiisa waxaan leenahay waxaanu mar labaad isla caawa magacawnay hogaamiye ku-xigeenkii abokor sulub dhadhame waxaanu leenahay waqtiga iyo sharcigu oo aan dhoweyn kula yaalla dastuurka dhammaan ha loo hoggaansamo hana la ilaaliyo qawaaniinta SSC hana lala shaqeeyo isbeddelka waxaanu ku soo dhoweynaynaa dhammaan SSC meelay joogtaba isimo waxgarad aqoon-yahan in ay charterkana ilaaliyaan isbeddelkana ilaaliyaan nabadgelyada iyo ujeeddada aanu leenahay SSC loo asaasay la dhowro golaha xusuusidana sharciyadooda iyo dastuurkooda loo hoggaansamo ayaan ku soo dhoweynaynaa dhammaan ummadda SSC meelay joogtaba.